dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha ayaa eedeymo ba'an u soo jeediyay maamulka heer gobol ee wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley iyagoo ku eedeeyay in uu ka gaabiyay shaqadii heer gobol ee ay u soo igmatay wasaaradda beeraha Somaliland iyagoo arrimaha ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa horta gobolku waa beeraley hadduu beeraley yahayna wuxuu u baahan yahay gobolku in wasaaradda beeruhu sida wasaaradaha kale ay u shaqeyso wasaaradda beeruhu inta imiga ay jirtayba wasaaradda wax alla wax ka shaqeeya iyo wax albaabkayga furaya wax galiya lama arag wasaaradii ka dambeeyay ee shalay toole la sameeyay ayaa shaqaalaheegii iyo shaqooyinkaas sidoo kale socdaan la yaab wasaaraddan gobolka Gabiley haddii cid qaas ah u xidhan tahay ee beeruhu wasiirku soo cadeey haddii kalena uu la og yahay wasiirkuna isaga ka soo jawaabi anigu ka dadweyne ahaan waxaanu ka marxaatinahay inayni wasaaraddaasi wax alla wax ay ka shaqeyso iyo wax ay qabato ani halka fariin uga diraya wasiirka beeraha waxaanu hayn ardaydii ugu horeysay ee ka qalin jabisay jaamacadda Timcade waxaana Charles naloo siiyay in la shaqeyno isuduwaha gobolka Gabiley ee beeraha marka waxaanu leenahay inuu fariin halkan uga diranahay wasaaraddu waxay u xiran tahay shakhsi bay kooto ugu xiran tahay waa Cabdirasaaq shakhsiga ay kootada ugu xiran tahay isaga isuduwaa isaga ku xigeena isaga wax kasta isku ah account xisaabiye isaga isku ah secretary waxa weeyaan maanta dhalinyaradu sababta u taariibaysa waxa weeyaan nin konton jiri markuu shaqooyinkii oo dhan isagu isku wada haysto uu isagu isku dira waliyahay uu isagu wax kasta isku yahay ee ninkaliye wasaaradii dhaneed kooto ugu xiran tahay waxaanu leenahay waxa lagu joojiyo dhalinyarada maanta taariib laga joojiya waa qalad xafiisadii waa maanta dadkii shaqeyn lahaa waa anaga ee maanta shaqeyn lahaa sababtan uu shaqeyn laanahay waxa weeyaan waa wax laan waa dadku waxay ku shaqeeyaan wax la dhafan walaal waxaanu nahay dadkii beeraha degmadu gobolka waa beeraley bilaabo wasaaradaha kale u shaqeyso ayaanu ka rabnaa annagoo ah ardaydii gobolka Gabiley gaar ahaan qoladii ka baxday fakalka beeraha waxaanu halkan dhaleecan weyn uga soo jeedinaynaa wasaaradda beeraha maamulkeeda heer gobol ilaa heer sare taasi oo aanu ka cabanayno annagoo ardaydii hormoodka u ahayd kulliyadda beeraha oo iyadoo gobolkana sida la sheegay dalka laga ogyahay uu yahay gobolkii wax soo saarka haddana ardaydiisii ama dadkii wax u bartay inay wax u soo saaraan dalkan gaar ahaan gobolkan Gabiley had iyo jeer la hor fadhiyo taasina aanu aad ugu dhaleecaynayno maamulka heer gobol ee wasaaradda beeraha haddaba waxaanu xukuumadda iyo dadka cid ay khusayso oo dhan ka codsanaynaa in baaqayga loo soo jeesto oo loo eego si wadaninimo iyo si dadnimaba loo eego baaqaygaas maadaama aanu nahay dadkii gobolkan wax u bartay waxayagiina laga soo qaaday halbacaad lagu lisay dhinaca kale maamulka wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley oo aanu isku daynay inaanu dhinaciisa wax ka weydiino ayaa aanay noo suuro gelin kadib markii aanu ka soo xaadirin xafiiskiisa halkaasi oo xafiisyada wasaaraddaasi ay albaabada u wada xidhnaayeen balse waxaanu halkaasi kula kulannay waashmaanka xafiiskaasi oo isagu sida uu sheegay baryahanba ku xanuunsanaya halkaasi waan xanuunsanaya waan adoo saak waa kaaniga soo yarkooda maamulka wasaaradda gobolku ee wali mu ku yimaada adiga xanuunkaaga iyo xaaladaada may ima yimaadaan mushaarka seed u qaadata mushaarka 3 kolka bishii raagto 3 bilo 3,000 Somaliland waan kordhinay waan leeyahay 300 Somaliland ma qaata 8 ciyaan leh meel kale wax ka shaqeeya ma jirto maamulka gobolka beeraha waxaanu leenahay in meeshan biyalaan baanu fadhinaa leyd male ya waxaanu leenahay wasiirka beeraha maanta inuu wax walba noo kordhiyo biyo shidaal noo sameeyo oo biyo noo sameeyo ayaanu rabnaa si kastaba ahaatee dhowaan ayay ahayd markii qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ay dhaliilo ba'an u soo jeediyeen wasaaradda beeraha Somaliland Zakariya Nuux Ibraahim Royal TV Gabiley.